love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي نتمنى من سنة وأبيك عشقي أوصله إنك أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي أوصله إنك and I love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي نكبنا مين سنة أوصله إنك أنا love you more than my life أنا أحبك يا حبيبي maalmo ka hor waxay ahayd fanaanadan caan ka ahayn caalam balse haatan waa fanaanada qaaday heesta saddexaad ee ugu saameynta badan dunida waxaana heesta ogsoonow inaan ku jeclahay oo ay qaaday fanaanada Nimca Habi iska duubay in ka badan 200 oo milyan oo qof waxaana heestan ay fanaanadu qaaday 4 sano ka hor dad badan oo taageera fanaanadan waxaa la yaab la noqotay inay heestan qaraxdo ama daawasho badan ay hesho 4 sano kadib markii la soo saaray waxaana heestan qaybta yar ee dunida qabsatay ay ka kooban tahay luqadaha Carabiga Ingiliishka Sawaaxiliga iyo waliba Soomaaliga taa ayaana heesta ka dhigtay in ay iska soo duubaan dadyow aan isku dhaqan iyo isku diin ahayn haddaba waa tuma Nimca Habi halkee ku dhalatay dhaqaale intee la eg ayay ka samaysay heesta ogsoonow inaan ku jeclahay maxaa ka jira inay Nimca Habi safar u tahay dalka Mareykanka oo ay casuumad rasmi ah ka heshay fanaaniinta reer Mareykan muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa xogo badan oo aadan ka ogeyn fanaanada Nimca Habi balse intaanan ugu deggelin soo gudbinta muuqaalkan waxaan ku xasuusinayaa daawade inaad muuqaalka share gareyso si uu u gaaro saaxiibo badan qaybta hoose ee commentiga inoogu rab aragtidaada sidoo kale muuqaalka like Soomaalida dhan adduunka waxaan rabaa inaan weydiiyo Nimca Habi halkay ku nooshahay heesteedii waxay noqotay viral waa taqaaniin meel kasta oo laga dhageystaa what's going on. Hello, hi, I am Nimca Habi. Thank you for the support. My song I love you more than my life. ogsoonow inaan ku jeclahay ana axibbak ya habibi waa ereya kamid ah heesta ay ku soo caan baxday fanaanada lagu magacaabo Nimca Habi heestan oo lagu magacaabo ogsoonow inaan ku jeclahay waxay soo baxday 4 sano ka hor balse waxa ay gilgishay masraxiyada caalamka 4 sano kadib markii la soo saaray heestan oo lagu baahiyay qayb kamid ah aalada TikTok oo lagu baahiyay muuqaalada ka yar halka daqiiqo waxa iska duubay in ka badan 200 oo milyan oo ruux taa ayaana ka dhigtay heestan in ay noqoto heesta saddexaad ee ugu daawashada badan caalamka 200 oo milyan oo ruux ayaa heestan ka heshay waxaana heestan ay Soomaalida u soo hoyday guul aad u weyn fanaanadana waxay u soo jiiday sumcad ayna hore u lahayn qaybta yar ee heestan kamid ah ee qabsatay caalamka waxay ka kooban tahay luqadaha Ingiliishka Carabiga Sawaaxiliga iyo Soomaaliga taa ayaana ka dhigtay inay iska soo duubaan dadyo kala duwan oo ku nool daafaha caalamka Nimca Habi magaceeda oo dhameystiran waa Nimca Ali Xasan waqtigeeda ugu badan ee fanad waxa ay ku qaadatay magaalada Nairobi oo caasimad u ah dalka Kenya halkaas ayayna ku soo saartay heeso badan oo ay tani koow ka tahay waxa ayna ku sugan tahay haatan magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya gaar ahaan degmada Boondere ee gobolka Banaadir shirkadaha waaweyn ee baahiya heesaha caalamka ayaa sheegay in heestan u xiri doonaan fanaanada isla markaana ay ka sameyn doonto dhaqaale aad fara badan TikTok ay samaysatay xalay samaysatay 2,000 oo qof wax ka yara ku xirnaa TikTok oo loo saaray ilaa adduunka dhan ka diiwaan galsatay aw gaalo aw islaam kulli waa laga yaqaan calaamada TikTok loo saaray dadka marka wax yar aan idinka tuso